السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha umuhuda channel ku xiran waxaan idin leeyahay meel kasta adduunka daafiisa ka joogtaan cizi caafimaad ku noolaada habeen wacan oo wanaagsan caawo khamiis ah maasha allah habeenkii ii gooyay ahayd maasha allah videogan waxaan duubayaa waa xilli habeennimo ah maasha allah gabdho badan oo walaalo oo respecti maasha allah aan soo hayno ayaa waxa iga soo codsadeen maasha allah hooyooyin daalan ayaan nahay yani maxaa la dhahay energy-ga ayaa nagu yar marka maasha allah umuhudoy maasha allah waa orodaa ilaahay caafimaadka kuu siyaadiya laakiin waxyaabaha ay isticmaasho maxay yihiin maasha allah in wax la isweydiiyo muxumo in maasha allah qofka walaalkaaga haddii aad yani aad maasha allah aad wax ku tuhumayso inaad weydiisana wax ceeba ma ahan maasha allah marka aniga haddii aan ka hadlo waxyaabaha maasha allah isaaciday adduunyada horta waa la iska wada daalan yahay ilaahay un baana xaal og qofna ma dhammaystirno hooyo maalinna waxa weye maasha allah way firfircoon tahay maalinna xaaladda way ka jajaban tahay marka alxamdulillahi rabbilcaalamiin horta kulli hooyooyinka soomaaliyeed maasha allah waa hooyooyin strong ah ilaahay caafimaad sareecan ha siiya meel kasta adduunka ay ka joogaan waxaan leeyahay farxad ku noolaada maasha allah markii intaas taas lagaga soo tago waxyaabaha ani aan isticmaalo waxaa ka mid ah insha allah waa idin tusi doonaa hadduu ilaaha idmo asxaabey horta maasha allah number 1 hooyo waa lafdhabarta guriga haddii ay tahayna number 1 inay nafteeda jeclaato aad iyo aad ayay muhiim u tahay ay number 1 nafteeda ay ka dhigto kadibna ilmaheeda waalidkeeda xaajigeeda maasha allah step ay saas usoo galaan inta ka dambeyso laakiin hooyo haddii ay tiraahdo firaminadoo kale ma qaadanayo allahu mustacaan hadday rabto ayadoo gaajasan bay saaka baxday hadday rabto maxaa la dhahayay qadadii xakaa inaysan haleel adduunyo inayna yacni say orod ugu jirto inaysan qada xakaa cunin baa macquul ah marka axbaabii nafteena aan ogaano nafteena number 1 aan ka dhigno waa hadda gabadha aqliga leh ya waa gabadha aqliga leh waxaan la hadlayo way jiri jirtay waaye badan oo maasha allah intan aan agekayga uu ka yaraa oo aan dhihi jiray maanta waan daalanahay saaka quraaciga ma hayso laakiin nafta waxay u baahan tahay tahwiib wax la yiraahdo ku qasbid haddii aad adiga waxa weeye shidaalkii aad ku dhaqaaqaysay iyo waxyaabihii energy-ga adiga aad ku dhaqaaqaysay sirta nolosha aadan fahmin natin waxba ma tihid waxa way bustaha hoostiisaad ka ooyeysaa ma fahantay marka insha allah nafteena number 1 aan ka dhigno kadib waxa way hore Soomaali waxay u tiri tiisa daryeele ayaa to kala ku daro marka taada markaa daryeesho oo taada meel aad saarto baa qof kale wax u tari kartaa laakiin adigiyo dayacan ah dayacan markii aan dhahayo kama hadlayo inuu gurigaaga uskag yahay in nadaafad daran aad tahay taas kama wado dayacan waxaa la yiraahdaa qofka naftiisa gabay hadduu rabo biyihii korkiisa maanta uu qaatay aan war ka haynin saaki hadduu doono aan quraacan hadduu doono maanta maxaa la dhahayay qadadii ay suququl ay ka gashay oo hal mar intuu maanta uu fariisto uu dig uu ka siiyay saxan bariis ah marka qofkaas overweightna waad noqonaysaa gaajada waa lagu cayilaa really waa lagu cayilaa laakiin qofka bini aadanka ah 5 mar markuu maalinkii wax cuno oo maasha allah tabaarakallah oo mar maxaa la dhahay biyo ku filan korkiisa uu qaato uu ogyahay maanta korkiisa wixii biyo uu qaatay intii uu masquul galay oo calooshiisa ay shower uu sameeyay maxaa la dhahaa intii maxaa la dhahayay kiliyihiisa ay intuu suuli uu galo uu wax falaashay oo yacni maasha allah ay kiliyihiisa u dhaqmeen marka qofkaas muxuu noqon karaa qashinkii dhan baa korkiisa ka baxay marka gabdho especially gabdhahan la hadlayaa maxaa la dhahayay waxaan aan usoo fariistay waa dhiiragelin walaalo badan maadaama ay luuqa igala hadleen maasha allah ay dhaheen waad carartaa waad socotaa laakiin kaamirada wixii ka dambeeya ilaaha og alxamdulilaahi ilaahay caafimaadka hanoo wada siyaadiyo adduunyada qof dhammaystiran ma jiro maalin xaaladu waa iska juucjuuc maalin maasha allah tabaarakallah caafimaadku waa dhagdhag
dadan caafimaad haysan baa jiro oo sariiraha jiifo ilaahay caafimaadka ha noo siyaadiyo inta aan haysanna caafimaad allaha siiyo marka maasha allah aniga waxyaabaha aan isticmaalo cunooyinka maasha allah waxaa kamid ah herbal life nutrition aniga cuntadaas aad iyo aad ii saaciday maasha allah tabaarakallah sheegaygaasaan subixi maasha allah aan qastaa waxaan ku bilaabaa subixi waxaan ku bilaabaa maasha allah waxaan ku bilaabaa markaan soo tooso biyo kulul iyo dacartaasaan ku bilaabaa markaan biyaha kulul iyo dacarta isku cabo intaan ilmaha kindergartenka iyo maxaa la dhahaye aan u diyaarinaya dharkoodii iyo gabdhaha aan timaha u shanlaysanayo dacartaydaas maasha allah almost waxay ii shaqaynaysaa 15 minute dan maasha allah quraacdayda kama gaarayo waan sii samaystaa maasha allah labadayda qaadee sheega ah caanahayga low fatka ah maasha allah ayaan dhag isku siistaa caagadayda ayaan waxaan gashtaa kindergartenka oo babydayda maasha allah markaan ilmaha geysto amaba aan sii socdo ayaan meel shan fariisto aan ku cabaa caagadayda biyahana igamaba daba hartaba biyaha waa sirta nolosha biyo isla ogaada haddii qurux aad rabtid haddii aad rabta inaad firfircoonaato biyaha cad waa number 1 ya number 1 weeyaan marka horena waxaa loo yiri gabar iyo guriba waa gacan ku hayn marka gacanta yaan la iska qaadin biidmillaah nafteena aan wax u quurno cuntooyinkan maasha allah looma isticmaalo only wax maxaa la dhahay wax horta kiimika number 1 ma ahan waa cunto maasha allah tabaarakallah ah haddii aad maxaa la dhahaye qof oo maxaa la dhahaye overweight aad tahay maasha allah way ku saacidaysaa inay miisaanka ay kaa dhinto haddii aad tahay qof nutrition xumi ay hayso oo yacni bila energy ah oo awood fiican aan haysan aad tahay maasha allah iyadana aad iyo aad ay ku saacidaysaa maasha allah waxaa noqonaysaa kor ay kuu soo qaadaysaa haddii aad tahay qof yacni caate ah oo waxa way iska tabaalaysano miisaankiisa hoos u dhacsan yahayna maasha allah iyadana kor ay kuu soo qaadaysaa miisaanka way kuu biirinaysaa maasha allah wax kiimika kuma jiro waa cunto maxaa la dhahaye herbal ah wax cilad iyo wax maxaa la dhahaye side effect ay leedahay ma jirto maasha allah hal isla ogaada ayaan dhihi lahaa insha allah xayeysiin kulli way ka dhan tahay insha allah hal isu quuro nafta waxa loo quuro hadduu ilaahay ogolaado maasha allah intaas taasaan kaga soo noqonayaa walaalaha gabdhaha ay soo weydiiyeen qadadaydana aniga maasha allah qamadiga rootiga madow qamadigeena caadiga ahaa maasha allah iyo salaadkiisa iyo maxaa la dhahaye chickenkiisa iyo wixiisa aan saartay yaan samaystaa biidmillah ayadana anoo samaysanaya waa idila soo wadaaga hadduu ilaahay ogolaado fruitiska ayadana maasha allah hal isla ogaado casiir aad qasato oo sokor kasoo buuxisa waxba micno kuuma soo kordhinayo energyna kama helaysid faa'iidana kuuma lahan marka insha allah number 1 ani waxaan kusoo celceliyaa number 1 ilaahay horta waxaan dhahaa meel biyo la-aan haddii aan tegi lahaa waan dhiman lahaa laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin inta oonka haya ee waxa weeyaan biyaha aan haysan ilaahay ha siiyaan leenahay alxamdulillahi biyaha waa number 1 qofka noloshiisa waxa uu ku socdo wuxuu ku dhaqan ahaan sidaan aaminsanahay sida aniga haddii markay biyaha iga yaraadaan awoodayda ay u daciifto waan dareemaa marka biyaha cad number 1 gabdho ha laga dhigto insha allah gabar iyo wiilba biyaha cad aan isla ogaana insha allah taasi waa taas maasha allah midda kale mid waxaan idinka faa'iideynayaa gabadha maasha allah haddii ay maxaa la dhahayay ay uur leedaho kaleeto saliidan maasha allah tabaarakallah gabadha haddii maasha allah horta gabadh uguba ay tahay oo kaleeto oo maasha allah babyga ugu horeeyay ay maxaa la dhahayaa markaas ay wado maasha allah waxaan dhihi lahaa intuuna korkaaga furfuranin intuuna maxaa la dhahayaa jirkaaga maasha allah dildilaac iyo tarar uusan korka kaa gelin bahashaas isla ogo insha allah farmasiyada laga helaa dukaamanka caadiga laga helaa oilkaas maasha allah aad iyo aad ayuu u fiican yahay yani had dukaan caadi aan kasoo gatay oon kasoo helay laakiin markii hore waxaan ka gadan jiray farmasiyada wadankayga aan ku noolahay maasha allah haddana waxay leedahay oo kaleeto maasha allah kareem ay leedahay iyadana kareem bay leedahay maasha allah suuligaaga gees ka dhiganaysaa maasha allah tabaarakallah suuligaaga gees ka dhiganaysaa innaba caadi ma ahan markaad qubaysato
ما شاء الله ماشي aad isleedahay oo dhan caloosha wax way ku masaajeynaysaa Allahu musta'aan meelihii dilaac kaaga jiro dhan ma sha Allah wax weeyaan dhag ba iskaga siinaysaa ma sha Allah marka yaan la iskigaanin wax way xaalad kasta oo lagu jiro waxa wanaagsan ina strong ahaato sida gabdhaha Soomaalida lagu yaqaano waa gabdho strong ah ma sha Allah waa gabdho ma sha Allah tabarakallah wax kasta u dhabar adeego ما شاء الله إلهي أداك ودليي إلهي هيسكديستو مركا دي نفتي أنا يعني إلوبين قروح ده هلو قدرو إن شاء الله نفقد نفتي يعني إلوبين ما شاء الله برنامج بدن وكقصو هذا دونا هدو إلهي أقلاده مركا أحبابي ما شاء الله قرآن سوسو قادنو إنرجي يشدالك جورجا يلف دبرتي جورجا تهي ما شاء الله aabana banaanka hore loo yiri hooyana waxa weeyaan waa boqoradii guriga marka boqoradii guriga marka maadaama oo tahay de miskiin yaro meelaha iska diidsan ha noqon insha Allah hooyo beautiful ah oo ma sha Allah lagu faano oo qurux badan oo dhaxda u xiran tahay noqon meesha aan joogno waa qurbanaxas waayahay xaaladahana way iska tira badan yihiin marka ilaahay kuwa ku guuleysta han naga dhigo mas'uuliyadu ma sahlana waxa weeyaan إلهي أولاد يرين هاي سنة مساكين تأنا إلهي هنقو حفظه مركا دحضة عن حرنا أحبابي إذا لها يعني السبوت قرينو ما شاء الله إن ليس السبوت قري ومهم قبل ولا شاهد كل يدتو ما شاء الله نفط هذا وحي أي يعني أي ما شاء الله أي كنتو سنة هدي أقول أنت هكا حاسدين وشاك وحنا وناكسن ولعنا سماي كله حاسد لماذا إسكدين إن شاء الله xaasidnimada wax fiican ma ahan xaasid ma ay aflaxa hore loo yiri xaasidnimada hal iska daay insha Allah hooyo waa hooyo insha Allah aan is dareeno feelingkeena qof kasto in hooyo kala tahay insha Allah aan dareeno mid kale maxaa la dhahaye gabdhaha qaar waxay ka hadlaan ay dhahaan maxaa la dhahaye in ma sha Allah waa la kala dhacayaa qofkan hadii maanta waxa uu ku qurux badnaado qof kale uma sheegayo wixii maanta uu ku guuleysto qof kale uma sheegayo inkastoo cid ku soo weydiinaysaba aysan jirin hadii even laakiin ay gabar walaasha ay ku soo bareedo ay ku tiraahdo maxaa la dhahaye walaalay waxan waa ma sha Allah aad ku tahay de sida ay tahay oo daacadnimo ku jirto oo ma sha Allah Soomaalinimo ku jirto oo waxa weeyaan gabarnimo asa maxaa la dhahaye womanimo in ay isu dareentiin ay ku jirto insha Allah uga faa'iiday ayaan dhihi lahaa wax weeyaan la kala qarsan insha Allah daacad ha la noqdo daacadimo hungooda hore loo yiri marka ahbaabi ma sha Allah intaasaan waxa weeyaan ama xawaan videoga aan ku soo koobaya gabdhahaas walaalaha ma sha Allah hoosta iga soo wacday ma sha Allah arrinka ay soo weydiiyay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad maxaa la dhahayay aan faahfaahiye kulli aniga umuhuda ahaan waxyaabaha aan isticmaalay iyo waxyaabaha isaaciday marka insha Allah nafteena aan kor u soo qaadno aniga hadda ka hor waxa ahaan jiray really labadayda ilmood hadda ilmaha yar ee ma sha Allah caloosha ku jira iyo ma sha Allah gabareyda Nawaal hadda sanadka jirto wallahi ilmayaasha ka horeeyay marka aan xaaladda dumar aan galo qof aad iskaga liidata ahaan jiray laakiin qofka bini aadanka maalinba markaad koraysid waa inuu ra'yi iyo aqli waa inuu ku kordhaa waa ina naftaada wax ka barataa dadka anigu waxaan ahaa ironkooda ama ironta ay hoos u dhacdo qofka bini aadankan haddii irontiisa hoos u dhacdo waxa weeyaan faa'iida de wuxuu ku soconayo kala ma jiro waaba waxa weeyaan dhiigga cadda hadduu eber kaa noqdo mar waliba waxaad noqonaysaa qof daalan dadka waxaa kafeega isku kici maxaa la dhahaye koo kacab energy cab alla tabar ma hayo tabarta ka doono laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin bahashaan intaan hadda aan isticmaalayo dhaxda iyo xirantay alxamdulillah ka war doona idin dhihi lahaa gabdho insha Allah raadiya aqriya maxaa la dhahay wax side effect leh ma ahan aad iyo aad ay ugu faa'iidi doontaan haddii aad low energy aad dareemaysid iyo haddii maxaa la dhahayay xaaladda ay kaa xun tahayba waxaad noqonaysaa qof dhaxda u xirantahay insha Allah wax kasta oo maxaa la dhahayay korkaagu u baahan yahayna isku dheelitiran baad ka helaysaa firiminoo leeyahay ma soo qaadin jikada yaalaan haliga raali noqdo waa iloobay laakiin insha Allah video horaa jiro أنا هبين عشرة إذا سميسنا كنيني جنا أنا كهلايو كنينية ذكر أو أنا قاعدة كرنا هجرو
gabadha markay xaamilo tahay aysan qaadan karin laakiin maasha allah multivitamina jiro waxaa jiro maxaa la dhahaya vitamin D waxaa jiro calcium jiro maasha allah vitamino oo banaanka aad ka iibsanayso kaleeto badan ee Herbalife ay leedahay oo inaba aan caadi ahayn maasha allah marka waxaan idin leeyahay arrinkaas maxaa la dhahayay taasaan yacni aan insha allah gabdhaha walaalahay soo weydiiyana taas halkaasaan kaga baxaya marka axbaabi aan is ogaano lafaheena aan ogaano nafteena aan ogaano number 1 hooya number 1 adiga iska dhig insha allah naftaada jeclow markaas adina jacayl aad helaysaa insha allah ya markaas adigana respect iyo jacayl aad helaysaa number 1 naftaada ka dhig biidmillah hooyo waxaa idinka tagayaa khayr iyo caafimaad iyo isbaraarujin haddii aad nagu cusub tahay share taabo gambaleelka furo saa noola socotid commentiga hanaga baqaylin like-ta hanaga baqaylin share insha allah waxaa idin leeyahay habeen wacanoo wanaagsan meel kasto adduunka joogtiin waxaa idin leeyahay farxad ku noolaada cizi caafimaad ku noolaada habeen wacanoo wanaagsan